habka ugu fudud maanta waxaan baran doonaa habka ugu fudud ee sunniyaha loo dhiso ama loo qurxiyo. Insha Allah waxaan filayaa inaad ka wada bogan doontiin. Soo dhawaada walaashin Faadimo. Sidaa baan marka hore u marinaynaa eyebrow gel-ka. Kor ayaan ka soo bilaabaynaa sidaa hoos horay qafiif uga dhigno, gadaal ayaan u badin doonaa. sidii afkaan hore qurux ay u noqoto qafiif ee u noqoto, gadaal dambe ayaan u madoobin doonaa, u balaarin doonaa. Masha Allah. Wakaasa waxaan ku shaleynaynaa shanladii raashkii waa lagu simayaa, waa lagu abrid gareynayaa. Masha Allah. sidii hore afka qafiif uga noqoto si wacan oo qafiif fudud ee sidii hore aysan madow uga noqonin. Wakaasa fudaydkaas iyo qafiifka markuu yahay aad ayuu qurux badnaanayaa. lama fahmay inaad marisay qalin sunni ama eyebrow gel. hadda waxaan ku sameynaa concealer-kii. Masha Allah. wuxuu ka jarayaa geesaha dhan wixii faraaruq ah ama madow ka gaaray. aniga waxaan u aqaanaa concealer-ka inuu hagaajiyahay, waa midka ugu habboon ama wax lagu sixi karo ama wax lagu hagaajin karo. Masha Allah. waa kaas hadda waa soo baxay sidii isagoo bil dhalatay ah sunnida. Masha Allah. qaabka ugu fudud oo ku sameyn kartid ama aad ku hagaajin kartid. Masha Allah. casharkan waa midka ugu horeeya. casharo kalena oo xiiso geli waan soo gelin doonaa insha Allah. daawasho wacan. fadlan dad video daawatid waxaan ka codsanayaa subscribe na saartid, like aad taawatid, comment-igana hoos aad igu reebtid. adigoo mahadsan walaalii sharafta leh. soo dhawaada.